dowladda hoose magaalada Berbera ayaa maanta tababar u qabatay kormeerayaasha wasaaradda waxbarashada ee dowladda hoose ee magaalada Berbera u qaabilsan dugsiyada ay gacanta ku hayso. tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Saaxil duqa magaalada Berbera iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo kormeerayaasha ka qayb qaadanayay. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay xukuumadda dowladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Saciid iyo sidoo kale duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin waxaana hadaladoodii kamid ahaa runtii maanta farxad weyn bay inoo tahay inaanu ka soo qayb galno oo aynu daahfurno tababarka la siinayo kormeerayaasha magaalada Berbera iyo guud ahaan gobolka Saaxil ee wasaaradda waxbarashada iyadoo runtii xiriir xoog u badan uu ka dhaxeeyo dowladda hoose ee magaalada Berbera iyo wasaaradda waxbarashada ee heer gobol iyo heer degmaba tababarkana wuxuu qayb ka yahay hawlihii aynu isla qaadanay sidaan kor ugu qaadan lahayn tayada waxbarashada ee ardayda magaalada Berbera dugsiyada hoose dhexe waxaanu doonaynaa tababarka leedu ku furaya maanta waxa weeye in si dhaba kormeerkiinu noqdo kormeer hawlihii loo diray iyo shaqadii loo diray sidii loogu talagalay oo soo qabtay la noqotaan si marka kormeerkiinu uu tayo u yeesho oo noqdo wixii feedback aad keentay markaba talaabo laga qaado hadduu noqdo dayacaasi nooc doona ama macalinka ha noqoto ama adeegyada ay u baahan yihiin iskuulada dugsiyada hoose dhexe waxaan ku soo ururinayaa insha Allah taala ilaahay waxaan ka baryayaa inaad noqotaan kuwa ka faa'iideysta intoodii hore yaqaaneen iyo inta loo kordhiyayba. gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa isaguna ku tilmaamay kormeerayaashan kuwa iyagu ka warhaynaya mustaqbalka soo socda oo ku tilmaamay dhalinyarada dhigata dugsiyada kala duwan ee ay kormeerayaan waxbarashada kormeerkiina markaad maanta ka faa'iideysataan tababarka iyo inta saddex maalmood la idisiiyo waxay ka muuqan doontaa sanadka dambe imtixaanka markaynu galayno ardayda ay ka muuqan doontaa kormeerahaas waayo waxa laga yaabaa iskuulada qaarkood haddii uu macalinka laftiisa aqoon kasta ha yeeshee uu waayo cid maxaan ku dhahay kormeerta waxa laga yaabaa inuu ardaydaba sii daayo 10 ka intaanay gaarin ilaa kormeerba kama baqayo oo cid u imanaysa ma jirto laakiin markuu maanta intii 15 qof og yahay oo gaadiidkiina dawladda hoose idinku daqdo kormeeri diyaar idinku yihiin inuu garan waayo saacada loo imanayo oo taymkiisi loogu tala galay waxbarasho ahaan oo ku ekaado marka macallimiinta iskuulada ee gobolka waxaan ku wargelinaynaa iyagana in la daba taagan yahay laga bilaabo maanta mas'uuliyiin kala duwan oo ay kamid ahaayeen sidoo wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee Berbera oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay tababarkan loo qabanayo kormeerayaashaasi. ujeedada kormeerkan waxa weeyaan ujeedada shirkan kormeerka ama tababarkan kormeerka uu qabanayna waxa weeyaan waxa uu qayb ka ahaa hawlo badan dadaalo badan oo la doonayo waxbarashada dugsiyada hoose dhexe in lagu tayeeyo waa arrin ay muddo soo wadeen wasaaradda waxbarashada iyo dowladda hoose tababarkana sidaas la mid ah waxa iska kaashaday wasaaradda waxbarashada iyo dowladda hoose ee degmada Berbera. geesta kalena dowladda hoose ee magaalada Berbera ayaa ku dhawaaqday natiijada 20 macallin oo la doonayay inay ka qayb qaataan waxbarashada dugsiyada kala duwan ee Berbera kuwaas ay dowladda hoose ee Berbera ay kala saartay macallimiin aad u tiro badan oo soo codsaday shaqadaasi. agaasimaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee Berbera Xasan Cabdi Cali iyo sidoo kale isduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil Ibrahim Digaale oo halkaasi ka hadlay ay hadaladoodii waxa kamid ahaa tobanka macallin waa 10kii macallin ee ka soo gudbay 4tii marxaladood ee imtixaanka ahaa ee la soo mariyay sidaad ogeydeen dowladda hoose degmada Berbera waxay xayeysiisay 20 macallin 20kii macallin dad baa soo xareystay marka dhowr iyo 20 gaaraya waxa soo baxay oo dhammaan shuruudihii looga baahnaa haday noqoto xaq aqooneed haday noqoto xaqii CV-ga haday noqoto xaqii tababarkii macallinka iyo nidaamkii oo soo dhameystay oo runtii si official loo qaatay 10ka macallin ee halka fadhiya saaka waxa loo bilaabay oo ay qaadan doonaan hal maalin oo waxa loo yaqaan induction training waxa weeyaan in lagu tababaro fiilkii hadda ay galayeen waxa uu wada wasaaradda waxbarashada khaasatan isduwa ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ayaa halkan ugu wada sidaa daraadeed beritoolo laga bilaabo 10ka macallin waxay ka hawlgeli doonaan iskuulada ku yaala magaalada Berbera oo runtii ay kaabi doonaan waxbarashadoodii ama quality-gii waxbarashada ama tayada waxbarashada aan ugu talagalnay in kor soo qaadaan
dowladda hoose ee Berbera ayaa baryahanba waxay waday tallaabooyin ay kor ugu qaadayso adeegyada ay bulshadu u baahan tahay. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Somaliland, Berbera.